ka hadlo arrinta Catoosh iyo xaaskiisa iyo arrinta Xasan Toob oo isaga ah ninka arrintan gundhiga ama u ah meesha ay kusoo biishoonayso sidaan ognahay Xasan haddii aan ka bilaabo isaga Xasan Toob waxaan soo shaqeeyay dad badan saa ognahay Ismaaciil Xaaji ka mid ah waxaa ka mid ah Fartuun Balbalaarka waxaa ka mid ah ninkii nacala hooyada ku kala dhigi jiray magaciisa muxuu ahaa magaciisa hadda maxaa ka mid ah dad badan ka mid ah dhammaan dadkaas waxay ay wada tageen waxa waaye waxa uu isaga ku hayo sida ognahay Fartuun Balbalaarka oo ahayd qof ay si weyn ula shaqeynaysay way ka tagtay laakiin tagtaankeedu waxay ka heshay magac sidoo kale Ismaaciil Xaaji rag badan oo ninka la shaqeynay jira oo ayagana ka tagay arrinta maanta marka waxa ay tahay Fartuun Balbalaarka waxa tusoo u filan inay isweydiiso Xasan Toob dadkaasi dhammaan la soo wada shaqeeyay oo ay ka mid tahay Fartuun Balbalaarka maxay aga tageen halkaas waxa ka garan kartaa in Xasan Toob laba shay loo tagay iyo durdur media si guud ahaan midda koowaad waxa waaye dadka la shaqeynayo oo ay isku ogoleen wax ay qanciyo ama wax ay ku joogi karaan meesha ay u ogoleen markii koowaad oo hadda sidii ka muuqatay gabadhan maslaxa hadalkeeda waxay tiri $100 la siin jiray maalinkiina dhowr muuqaal laga doobi jiray oo intaas oo $100 ku lagu heli jiray xayisiinay sameeyay jirtay waxa cad marka ragani inay yihiin rag dadka la shaqeeyo durdur media aana siinin xaqooda midda labaad oo hore u jirtay haddana maslaxa ay ka dhawaajisay ayadana waxa ay tahay in meesha qofka lagu bahdilo wax uusan diyaar uusan u ahayn ama aan u qalmin shakhsiyadiisa ama diin ahaantiisaba aan u qalmin qofka sameelada oo taas ayadana ay caqabad kale oo qofkii ka hortaagan inuu shaqada sii wato ah intaas markaan ka soo gudubno durdur media hadda dad badan la shaqeeyo dhammaan dadka la shaqeeya aniga waqtigan ma aaminsani inay ku qanacsan yihiin shaqadaas durdur oo ay u shaqeynayaan ayagoo qanacsan ninkan maslaxa qabo oo lagu magacaabo Catoosh isaga laftiisa ayaa waxa uu halkaas ku yahay nin dulman dadka qaar waxay leeyihiin ninkeeda raali ka ah maslaxo inay halkaas joogto oo ay halkaas saas loogu bahdilo هذا runta markaan isku sheegno Catoosh isaga laftiisa ayaa ah dadka la haysto Catoosh waa la haysta waxa laga yaabaa sida maslaxa amal isaga in rakaata lagu haysto ama $100 uu dhimanayo ma uu isleeyahay halkaan $100 hadaa ka tagto meel kale ma helaysid waan ognahay isaga laftiisa waxa uu ka imaaday kaas Jowhar nin iska beer falato ahaa goboladaasi waxa laga yaabaa isaga laftiisa inay arrintan ama inuu halkan sii joogo dan ay ku hayso oo dadkii ka dambeeyay ay risaaqad iyo ka sugayaan nolol maalmeed maadaama sidaas ay tahay oo dadkii isaga ka dambeeyay ay nolol maalmeed ka sugayaan isma dhaqaajin karo waxa uu ku qasban yahay halkaasi in uu ku cadibnaado oo wax walba oo durdur media iyo Xasan Toob si guud ahaan ay ku amran u sameeyo waa qiyaas kartaa nin ogol ma lahan xaaskiisa oo qaawan in social media la soo dhigo si daawasho ugu cid ogolanaysa malaha halkaas waxa ka cad Catoosh laftiisa in uu baahan in la xoreeyo maslaxa maadaama maanta ayada ay madaxda ka aragtay inay meesha ka tagto oo bahdilkan ay ku sii jiri karin waxa soo kale u baahan in la xoreeyo oo la tuso agoodda uu leeyahay Catoosh maanta runta markaan isku sheegno Catoosh iyo maslaxa ayaga durdur media ka magac dheer muhiim ahan halka aad ka dhaxlayso waxa muhiim ah adiga shacbiyad ma leedahay ma lagu yaqaan ma malaynaysa maanta Catoosh iyo maslaxada ay channel ay leeyihiin ay furtaan inay durdur media fuiska ay helayso ka helayaan waa ayaga ka taageero badan laakiin awoodda ay leeyihiin ilaah ma tusin hadda anaga aan tusna awoodooda aan u sheegno inay halkaasi maslaxada ka tagtay Catoosh oo ka tago oo ay ka tashtaan oo ayaga ay isku filaasho gaaraan
maadaama marba ay tahay meesha ay mishaarka ka qaadanayaan social media adan xafiis qof uu leeyahay ma ahan durdur media sida ay dhaxlaysa ayaad mid catoosh channel inaad furto aad laga soo dhaxli kartaa halkaas ayaad waxaad keli kartaa wixii durdur media aad gelisay iyo wax ka badanba kaliya waxay u baahan tahay dulqaad catoosh waxaan dhihi lahaa catoosho waan ognahay shaqada hayso wad ku cadood buu ilaah ku siiyey durdur media inta la shaqeyn karto waa la soo shaqeysay maxaa la dhahay haddana credit fiican iyo magac waad ka samaysay lacag haba ka samayna laakiin magac waad ka samaysay maanta waxaa tahay nin hadduu social media isaga u qaas oo u madax bannaan yahay hadduu furto kasoo dhaxadli kara dadka qancini kara magac leh la soo raacayo midda labaad oo aan arrinta inaan iga gudbaan rabo waxaa waaye maslaxo waxay tiray xayeysiinta aan samayni jiray wax lacag oo lagu siini jira malaha taas mid jira inaan ka dhaaro maslaxo adiga maslaxa iyo catoosh ah iyo qofka aad xayeysiinta u samaynaysid qofka inuu dhex jiro oo kaamirada gadaasheeda wax ka hagaya muhiim ma aha magaca xayeysiinta lagu samaynayo magaca iyo magaca catoosh waxaad samayn kartaa inaad idinka meel aad leedihiin afrotin isla markaasna xayeysiin iyo wax walba durdur media aad ka dhex samaynaysid meesha inaad ku samaysaan waa muhiim in aad ogaato social media in uu xasanto iyo durdur media lahayd oo geeskaada aad ka geli karto marka xale markii aan daawaday horta aan xalan daawaday hadalka maslaxo wala aad baan ugu xumaaday markii aan arkay aayada iyo hooyadeed oo cooshad ama guri buusha dhex fadhiyo saan qiyaasay waa kaamunka ka mid ah kaamunka muqdisho oo maamada isku qoynayso aad baan ugu xumaaday waxaan niyadda iska dhahay maslaxa ma oga miyaa social media inay durdur media lahayd oo ayada geeskeeda ay ka geli karto oo geeskeeda ay ka shaqaysan karto waa arrin aad looga xumaado waxaan ku talinayaa Soomaaliyeed dhammaan in gabadhaas la garab waxaan ku talinayaa in Soomaaliyeed guud ahaan gabadhaas maslaxa la garab istaago ujeedin meesha ay ka soo hadlaysay iyo hooyadeed soo kale arrinta intaa wad ayaa waxa ay tahay markii ay tiray $100 aan qaadanay $8 ka mid ah waxaan u diri jiray reerkeena si ciyaalka ay la dhashay ay u helaan cunno ay cunaan anigana 20 aan la heli jiray waa arrin runtii qof walba dabeer la taabanayso waxaan ummadda Soomaaliyeed ka codsanahay inay gabadhaas garab istaagaan ayadana waxaan si waafi ugu sheegayaa social media xasanto ma lahan wadna ka xamaalan kartaa adoon cidna u daba fadhiisanin si xor ah ayaad naga xamaalan kartaa xasan iyo durdur media dib ugu laabaneen ummadda Soomaaliyeed ku kortaayihiin hore u soco hadalkayga intaas ku soo gabagabeynaa waxaan rajaynayaa barnaamijkan ama muuqaalka